إلهي إلهي بمن أرتجي وما غير عفوك عني أريد عبيدك قد أوسدوا بابه وما لي سواك إله العبيد وما لي سواك إله إلهي وقفت ضلوعي تسيل وقلبي ببابك باك دليل فذنبي كبير وزادي قليل فمن بعفو جميل فمن علي بعفو جميل أتيت أجر خطايا السنين أتيت إلى الراحمين وكل اعتقاد وكل يقين بأن لديك شفاء العليل بأن لديك شفاء العليل سألت تلني الذنوب ما مسنا من عيوب فأنت إلهي طبيب القلوب وأنت الذي تقل الذنوب وأنت الذي تقل الذنوب. أنت الذي تقل الذنوب وأنت الذي تقل الذنوب وأنت الذي تقل الذنوب. أنت الذي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة الخير يا أحبابي الكرام. سو دوادا كيف حالكم؟ أخبارتينا معليش حالته وحواي وإسويني حوغا وحواي وعجزنا وإن سو قارواي إن شاء الله سيدا أكسونتهين وحا إنو بلاونا جزكي شنات متقانا جزكي شنات أنو sideedii saxaabe oo macnaha saxaabi insha allah. marka saxaabiga ugu horeeyo aan qaadanayno oo caawa shaashada inoo saaran magaciisa waa xabiib binu zayd al ansaari ayaan qaadanaynaa. xabiib binu zayd al ansaari insha allah. marka waxaan rajeynaa inaad noo sheer garaysaan. hadduu ilaahay dhaho insha allah dhammaantiin soo dhawaada waa idin soo dhaweynayaa. balanteen waxay ahayd xalayto inaan soo galno, yani waa awoodi waay xalay been idin sheegayay. marka waqtigan waa iga dhacay. marka waxaa is dhahay maadaama juuska shanaad annaga aan galayno waa hal habeen oo break ah si insha allah breegna waa qaadanay. marka muxuu ahaaye soo dhawaada, waa mahadsantihiin sidaa kheyrka u jeceshihiin, sidaa u sheer garaynaysiin, sidaa mataqaanaa u like garaynaysiin. yani
aada ugu mahadsantihiin. caawo insha allah waxaan qaadanaynaa saxaabiga ugu horeeyay ee juska shanaad ayaan qaadanaynaa hadduu ilaahay dhaho. juska shanaad wuxuu ka kooban yahay xabiib binu zayd alansaari, abu talxa alansaari, ramla bintu abi sufyaan, waxshiyu binu xarb, xakiim binu xuzaam, cabaad binu bashir iyo zayd binu taabit iyo rabiic binu kacab. intaas ayaan mataqaanaa ayaan qaadan doonaa insha allah tacaala isbuucan iyo isbuuca kale hadduu ilaahay dhaho. waa 8 oo saxaabi. isbuucan hadday noogu dhammaato ahlan wasahlan, haddii isbuucan noogu dhammaan weysane isbuuc dambe ayuu noo gabagaboobayo juskan hadduu ilaahay dhaho. marka waxaan jeclahay insha allah inaa idinka sheer garaysaan dhammaantiina hadduu ilaahay dhaho. haddana waxaan bilaabanaynaa muxuu ahaaye qisadeennii caawa oo xabiib binu zayd alansaari ayaan noo bilaabanayo. saxaabigan jaliilka ah magaciisa waxaa la dhahaa xabiib binu zayd alansaari ayaa la dhahayaa. insha allah waxaana ku furfuranaynaa ducadeennii ee caadigii inoo ahayd hadduu ilaahay dhaho. bismi illaahi araxmaani araxiim. allaahuma inii axbabtu saxaabata nabiyika muxamadi sala allahu calayhi wasalam asdaqa alxubi waacmaqah fahabnii yowma alfazaci alakbari liayin minhum fainaka taclamu anii ma axbabtuhum ilaa fiik yaa arxam araaximiin. ilaahow waxaan jeclaaday saxaabadii nebigaaga moxamed sala allahu calayhi wasalam jaceylkan ugu runta badan uguna xeel dheer ee igu hibeey maalinta argagaxa weyn ee qiyaamaha inuu ii shafeeco midkood, maxaa yeelay waa ogtahay inaan u jeclaan aniga adi dartaada ayaan u jeclaaday yaa arxam araaximiin. saxaabiga caawa aan qaadan doonno waa ku celcelinay dhowr jeer sidaa u barataan magaciisa. waxaa la dhahaa xabiib binu zayd alansaari insha allah tacaala. xabiib binu zayd alansaari wuxuu u dhiman doonaa hadduu ilaahay dhaho rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi dartiisa ayuu u dhiman doonaa hadduu ilaahay dhaho. marka insha allah tacaala qisada ayaa idinka hordhicin, waa geli doonaa haddii ilaahay dhaho, waana ogaan doonaa miisaanka oo saxaabada ku dhex lahaa insha allah. baaraka allaahu calaykum min ahli beytin raximakum allahu min ahli beytin. baaraka allaahu calaykum min ahli beytin raximakum allahu min ahli beytin min hanaa'i rasuuli calaa xabiibin wa aali beyti. ilaahay wuxuu leeyahay allaha barakeeyo. baaraka allaahu calaykum, allaha idin wada barakeeyo min ahli beytin, ahli beyt yani ahli beytkiyow allaha idin barakeeyo. raximakum allahu, ilaahay ha idin naxariisto min ahli beytin, ahli beyt. ahli beytkan la sheegayo waa xabiib binu zayd, ahli beytkiisa waaye, ehelkiisa waaye. xabiib binu zayd ehelkiisa waaye, ehelkan laga sheekeynayo. في بيت تتضوع طيوب الإيمان في كل ركن من أركانه وتلوح صور التضحية والفداء على جبين كل ساكن من سكانه نشأ حبيب بن زيد الأنصاري ودرج. في بيت تتضوع في بيت قري تتضوع طيوب الإيمان في كل ركن من أركانه. يعني قري أو متقانا كفافي دحديسا أما يعني تير كمد تير كيسا يعني تير كستو أو قرغاس كمد أو متقانا قوة فافي إيمانك يعني إيمانك أيا وحو كفافي يعني قري أو كمد يعني mataqaanaa aan dhehe gurigii oo xabiib binu zayd alansaari ayaa wuxuu ku dhex faafay iimaankii ku dhex faafay fii kulli ruknin min arkaani, tiir kasta oo tiirarkiisa ka mid ah gurigiisa macnaha saas oo ahaa, macnaha guri oo wuxuu ahaa iimaanka buuxo oo ahaa. watalawuxu suwaru tadxiyati walfidaa'i calaa jabiini kulli saakinin min sukaanih. gurigan dadka oo degan ama dadka ku jiro oo dhan waxay mataqaanaa waxaa soo gaaray waaye, yani waxay hureen naftooda, ayay hureen yani mataqaanaa naftooda ay waxay u hureen ilaahay dartiisa iyo rasuulkiisa ay naftooda u hureen iyo diintan ay naftooda usoo hureen. yani ku kasta oo degan gurigan dhexdiisa waxay usoo hureen naftooda usoo hureen rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayhi. ya nasha ayaa ku barbaaray xabiib binu zayd alansaari wa daraja ayaa ku weynaaday gurigan dhexdiisa ku weynaaday. xabiib binu zayd
gurigan oo mataqaanaa yani iimaanka buuxiyey oo mataqaanaa qof alla qofkii ku noolba oo nafsadiisii mataqaanaa uu soo huray rasuulka salawaatullahi wasalaamu caleyhi iyo diintan oo uu soo huray ayaa ku nool ayuu ku dhex barbaaray mataqaanaa xabiib binu zayd fa abuuhu aabihiisa xabiib binu zayd in lagu bara ma aho xabiib binu zayd yaa waaye haddaa lagu baraa marka fa abuuhu aabihiisa huwa zayd فأبوه أبيس هو زيد بن عاصم وهي طليعة المسلمين في يثرب dadkii ugu horeeyay ee muslimiinta oo Yathriba ma arkino oo ku islaamay oo Madiina ku islaam dadkii ugu horeeyay ee Madiina oo islaama ayuu kamid ahaay wa ahadu sab'i shuhidu al-aqaba yani waa toddobaatankii midkood toddobaatankii bay'at al-aqaba oo ka soo qayb galay ayuu ahaay ya وشهدوا على يد رسول الله مبايعين ورسولك أتاقى قعمه إيقو لبايعة ماي معناها ومعه زوجته زيد وحال السعودي حاس كيسا وولداه إلى مدي سويل عبد الله إي زيد على السعودين معناها لو ويلو دلي عنده عبد الله إي وحود دلي حبيب كان هذا عاو أنكشيكين دون هدو إلهي دون أبودا زيد الله وأما أمه هو يديسا هي إيادة أم عمارة الله لكن مقعدة سحدة نصيبة المازنية يا الله مقعدة أول امرأة حملت السلاح دفاعا عن دين الله وناكتي أما هوانكي أقوه الرسي إسلامي دي أقوه الرسي أو هب قاتي إيدو دفاع دينتي إلهي دفاع وهواني دي أقوه الرسي أو هب قاتي واي ومتقانا إيدو دينتي إلهي دفاع واي iyo وديادا iyo difaacid ay difaacayso can محمد رسول الله يعني نبي محمد إيدو دفاعيسو وأخوه walaalkiisa هو عبد الله بن زيد عبد الله على نحره دون نحر النبي وصدره دون صدره يوم أحد maalintii أحد waa ninkii rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayhi isku aadiyey oo si oosan rasuulka u dhaawacmin macnaha oo isku aadiyey oo mataqaanaa qoortiisii iyo qoortii rasuulku isku aadiyey garbihiisii iyo garbihii rasuulku isku aadiyey xabadkiisii xabadkii rasuulku isku aadiyey oo u noqday mataqaanaa yani wuxuu u noqday ii sheeg sudradii jaakeetkii xabadda la isaga celinaya u noqday waay ninkaana ujeedi وأخوه walaalkiisa هو عبد الله بن زيد waaye الذي جعل نحره دون نحر النبي يعني qoortiisa ayuu wuxuu ku aadiyey qoortii nabiga salawaatu ullahi wasalaamu calayhi uusan yani waran ama falaar ugu dhicin وصدره xabadkiisa ayuu ku aadiyey duuna sadrihi rasuulka macnaha xabadkiisa ku aadiyey yowma uxudin maalintii uxud xabiib marka ninkaasaa walaalkiisa cabdullaahi la dhahay حتى قال فيهم الرسول صلوات الله وسلام عليه أهل بيت كان مرك رسولك وحوده يعني إلا أهل بيت كان أو كده هذا أو نها معناها ودعينا يوليه بارك الله عليكم من أهل بيت إلهي هايدين وذا بركة أهل بيت يا إلهي هايدين وذا بركة ورحمكم الله إذن وذا نحرست أهل بيت دن أو منطقة هويو إي أبو إي ولالو oo mataqaana rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayhi inay nafta u huraan diyaar u waay dadkaana ujeedid nafada nuuru ilaahiyu ilaa qalbi xabiib binu zayd nuurkii ilaahiga ahaa hanuunkii islaamkii diintan ayaa mataqaana qalbigiisi galay xabiib binu zayd waxaa qalbigiisi galay nuurkii ilaahi nuurul ilaahiyi يعني دينتان معناها نور كذي أيا وحوق اللي متقانا إيه نونكي أيا حبت كيس كبوح زموها وهو قط ضري إسقى أو ويلي أو شاب لماذا عن يعني عن ويلي جارن أصلا ويلي سيبك عنك كان جارن يا أصلا كان جارن أو ويلي آد وير أيا متقانا هي نور كان قلبي كيس جاري فاستقر فيه وكسكنا وكحسل واي وتمكن منه ويعني وتمكن منه وكل أن يمضي مع أمه وأبيه وقالته وأخيه إلى مكة وحا إلهي قدري نكان أو إلهي أو أقري إنه معناها لبحه هو يديسا أبيهيسا أبتغيسا ولالكيسا فمل كدن إلى مكة آذين ليسهم مع النفر 70 من الغر الميامين
في صنع طريق الإسلام تدواتنكي أو رسولك لصو بايعتمي أي كمد أهايين تدواتنكاس أو aadku u wanaagsanaa oo ansaarta ahaayeen oo rasuulka salawaatullahi wasalaamu calayhi baycatul caqaba oo mataqaanaa lasoo galay ayuu ka mid ahaa xabiib binu zayd xaytu madda yadahu sagiiru gacantiisi yareed uu taagay wa baayaca rasuulullaahi rasuulka ilaahu la baayactamay taxta junxi dulaami mugdiga haweenkii mugdigiisa dhexdiisa baycat alcaqaba ahayd baycat alcaqaba yah baycadii oo rasuul ilaahay oo ku dhahay waaye yadullaahi fawqa aydiihim yani gacantoodii ayaa gacantii ilaahay kor saarneed macnaha baycadii la dhahay waa baycatul caqaba ومنذ ذلك اليوم ما أنت أسلق صوب بلاو غدا رسول الله صلوات الله وسلام عليه أحب إليه من أمه وأبيه حبيب بن زيد يعني هو يديس أبيس رسولك أيو كجعل هذا معناه رسولك أيو كجعل هذا هو يديس أبيس رسولك أيو هي يعني لازمي يعني هذا وجعل هذا رسولك صلوات الله وسلام عليه ومنذ ذلك اليوم ما أنت أسلق صوب بلاو غدا رسول الله صلوات الله وسلام عليه أحب إليه من أمه وأبيه حبيب بن زيد ما أنت أسلق صوب بلاو هو يديس أبيس وحكج على هذا رسولك صلوات الله وسلام عليه وأصبح الإسلام أعلى عنده من نفسه الذي بين جنبيه يعني وحون غضي من إسلامك كوين يعني إسلامك أيا كوين دينتان أيا كوين أسجا يعني قلبيسي نفسديسي وحا كوين معناها دينتي إلهي كوين معناها رسولك صلوات الله وسلام جعيلكيسا كوين qalbigan oo ku wado mataqaanaa iyo nafsadiisii qalbigan oo macnaha oo garbiisa ku dhaxwado iyo nafsadiisii yaan oo tan oo ku jirto yani waxa ku dhaxweyneed waa islaamnimada ku dhaxweyneed thumma yashhadu habib bin zayd badr ka qayb galay لانه كان لم يشهد لم يشهد كما قيب قلين حبيب بن زيد بدر كما قيب قلين لانه كان يومئذ صغيرا جدا آذو يراي يعني ويل ان كان غيرنو اها ولم يكتب له شرف الإسهام في أحد أحدنا ما عرفتي يعني ما تقارنا ما قلن دقالك أحدنا كما قيم قلن لأنه كان ما يزال دون حمل السلاح دقالك أحدنا يعني من هب قاضي كرم ما بأهم بأسرا من آد يروا هاي أو معناها ولي يعني حوقي سما إدلانين لكنه شهد بعد ذلك المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد بدر وحي كدن بي أو دقال إذنه كقيب قلن markaas wixii ka dambeeyay wixii dagaal ah oo rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayhi duulaan ah ayuu la galay asaga fakana lahu fi kulli minha raayatu izza duulayaashaas oo galayay waxa u sugnaatay macnaha sharafa u sugnaatay wa saxiifatu majdin iyo safxad oo sharaf leh ayaa macnaha oo ku qoray waa safxad sharaf leh oo qortay taariikh oo dhigay waa wa mawqif fidaa'in yani mawqif oo furasho ah ayuu sameystay macnaha nafsadiisa oo ku furanay غير أن هذه المشاهد على عدمتها وروعتها لم تكن في حقيقتها سوى إعداد ضخم للموقف الكبير الذي سنسوق لك حديثه إن كستو نكان أو كسو قيب قلي يعني ما تقانا يعني دقالو أو يعني آد وين أما دقالة دي أساق أو كسو قيب قلي حبيب بن زيد دقالة دي أساق أو كسو قيب قلي إيضا أو مركي لا فيريو وينان تيدا iyo wanaageeda iyo sida ay maasha Allah u ahayd hadana xaqiiqadeeda waxay u ekeed dagaalkaas wuxuu u ekaay oo ka soo qayb galay intaas oo dagaal ka soo qayb galay wuxuu u ekaay dagaalkaas oo dhan arin weyn oo mataqaana aan ka sheekeen doono inuu u diyaar garoowayo oo kale yani arin weyn inuu u diyaar garoo dagaaladaas uu soo galay iyo yani wacdaradaas uu dhigayo oo dhan macnaha waa wax oo asaga nafsadiisa oo macnaha arin kale oo soo socoto oo aan ka sheekeen doonno arintaas oo macnaha nafsadiisa u diyaar gareynay waxaas oo dhan diyaar garow la aheedbo والذي سيهز ضميرك في عنف sheekadan soo socoto oo nafsadiisa oo ugu diyaar garoowaysa dagaaladaas iyo waxyaabahaas mawaaqiftaas aad ku wanaagsan oo nafsadiisa ugu diyaar garoowaysay hadii hadda oo lagu soo bandhigaa lagu dhaho sayahuzu ضميركاga ayaa dhaqaaqayo fi cunuf xaqdaaf si xaqdaaf ay qalbigaaga u dhaqaaqa macna kama hazza damiru malaayiin almuslimiina malaayiin oo muslimiin sida damiirkooda oo u dhaqaajiyo oo kale ayu damiirkaaga u dhaqaajin doona qof yahow maqlayo oo dhageysanay sheekada soo socoto yani oo ninkaan laga sheekeen doono
oo weliba sheekadaas oo wixii ka horreeyay oo dhan diyaargarow leh ahayd ayaa macnaha waxay dhaqaajin doontaa sheekadaasi damiirkaaga ay dhaqaajin doontaa siday malaayiin muslimiin ee hortaadii usoo dhaqaajiyeen ya mundu casri nubuwati nebinimadii waktigeeda wa ilaa yowmina hada wa ilaa yowmina alladii naxnu fiihi ilaa ii maanta anaga hadda aan taaganahay just now yani ayay qalbigeen dhaqaajinay kulama sheekadaas adiga aa maqashid oo dhagahaaga ee ku dhacdo yani qalbigaaga wuu dhaqaaqaya muu adkeysan kartid damiirkaaga muu adkeysan karaa laga wadaa macna maxaa soo socdo qariib waaye yani sheekadan oo soo socoto yani dadka yaryar ma loogu talagelin waxaa loogu talagalay dadka waaweyn loogu talagalay macnaha sheekadan hadda soo socoto dadka waaweyna loogu talagalay waa sheeko aan dhagaha maqli karin waa sheeko oo damiirka xanuunjinayso sheekadan oo lagu soo wado uu leeyahay qaari ah ama kaatibka qori kutubka wuxuu leeyahay waladii sheekadaasoo sataruucuka qisatahu kamaa racathu calaa mari lcusuuri dadka adig kaa horeeyeen sheekadan say ugu yaabisay ayaa adigana kaaga yaabin doontaa dadka adig kaa horeeyeen siday ugu yaabisay adigana uga yaabi doontaa فتعال نستمع إلى هذه القصة العنيفة من بدايتها كالي أن دقيسني قصة أن دقيسنو قصة أو إيضا ضمب معناها وضع عنفي يا عنفي يعني وشدو إيضا شدو إيو مرقوة من بدايتها بلاو غيرا ومرقو إيو شدو إيو نبئه في السنة 9 للهجرة هذا لغو شيء عمرك قصة هذا بلاوت في السنة 9 للهجرة سنة كي سقالات هجرية كان الإسلام إسلامك وحو أهاي قد صلب عوده له قد صلب عوده إسلامك يعني أي تيركي سأتكاضي إسلامك لويسو كإستاغواي وقوة شوكته يعني متقانا إسحوغو يشتري لقوضها وقوية شوكته يعني قدح دي حوغ نقط حوغ يلت معناها إسلامك وحواي حوغ يشتري لقوضها ورسقت دعائمه يعني متقانا ودقاقين يعني تاكوينكيسي او دولكا يعني جرديسي ايا خوغ نقطي او ادكاتي اسلامك جرديسي way adkaatay xooga yeelatay macna islaamka xoogo yeeshtay sanadkii 9aad islaamka xoogo yeeshtay muslimiinta adduunka meel kasta waa laga cabsanaa marka فطفقت وقود العرب تشد الرحال من انحاء الجزيره فطفقت waxay gudu gashay marka وفود العربي عربتي وفدي عربت اهايين تشد الرحالة ايغو alaabtooda iyo macnaha sahayadooda جزيرة العرب dhinacyaheeda afarteeda geesdan ilaa يثرب magaalada يثرب carabta oo dhan marka waxay soo aadeen yani iyago wafdi u socdo جزيرة العرب ay soo aadeen yani aan dhahay oo جزيرة العرب joogeen Madiina ay soo aadeen Madiina ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا مركو دهاي واي رسولك صلوات الله عليه لو شيغاي لو بلان قاده وقتigaas عام الحزن waxa loo soo dejiyay suurada macnaha maki waaye waxa la leeyahay marka يعني إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا يا ولينا ما لقارين والله بشارين يا رسولك صلوات الله وسلام عليه ورأيت الناس ضدكيا waxa arki doonta yadkhuluna fi diin illahi ilaahi diintiisa soo galayaan afwaajan iyo koox ay soo galayaan koox hada marka waxa waaye yani macnaha wuxuu leeyahay marka ninka kutubka qoray wuxuu leeyahay fatafiqat wufud al-arabi arabta wafdiyadeedu waxay bilaabeen marka tashuddu ar-rihala min anhaa' al-jazira yani jaziratu al-arab dhinacyaheeda oo dhan ay ka soo wada baxeen waa dadkii inay soo islaamaan ay bilaabeen iyagoo koox u socdo ilaa yathriba magaalada yathriba ee madiina imaanayaan liliqaa'i rasuulillahi salawaatullahi wasalaamu calayhi rasuulka inay la kulmaan ay u imaanayaan wa i'laani islaamiha islaamkooda inay macnaha ay daahiriyaan been yaday hortiisa inay islaamkii iyo shahadankii ay ku qirtaan rasuulka hortiisa salawaatullahi wasalaamu calayhi wa mubaayacatihi iyagoo la baayactamaya ala sam'i wa taa'a inay macnaha
ay maqli doonaan hadalkiisa ay ateeci doonaan. mubaayacada lagu sheegaya waxa waaye in rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayhi heshiis lala galo, heshiiskaas oo in asaga iyo diintanba ay difaaci doonaan, amarkiisana ay yeeli doonaan, aysan khilaafi doonin wax alla wixii mataqaanaa oo afkiisa rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayhi kasoo baxo inay u hogaansamaan, diintaana u hogaansamaan oo si daacad ay u shaqeeyaan. yani mubaayacada lagu sheegaya waa taas, ina rasuulka saas lagula heshiiyo waay. وكان في جملة هؤلاء الوفود وفودا أو سوغلاين وحكمت أهاي شكل هذا بلاون صفي عودكيسو. وكان في جملة هذه الوفود وفودا أو عربت أفرتي دقيس جزيرة العرب كسو وضقليسو وحكمت أهاي وفد بنو حنيفة قبيل كان أورير بنو حنيفة لدهايان يعني وفد جودي وايه القادم من أعالي نجدة مقالة نجد كوركيدا كإمادين يعني مقالة نجد دولات كد كإمادين مدينة إمادين reer bani xunayfo yaa aheedeen waay carabta kaleete maba la sheegine idin kale maxaa goonin liigu sheegay reer bani xunayfo maxaa idinka keligiina gooni na liigu sheegay taasna su-aal waa lees weydiiyo ma fahamtee qabiilkan keliya maxaa gooni loo sheegay ilan yani wufuud badana soo gelaysay magaalada madiina maxaa qabiilkan loo qasisay sheekada soo socotay ka mid tahay marka أناق الوفد ده وفدجان أورير بنو حنيفة أو قاس كأله حصي أيا وحي هلا هذي كحرتين هلا هذي جيل الكود معناها جيل اللي لو بدن جري مركي أول صفرة إيميلها الآذى جيل اللي لو سفر جري مركا أناق الوفد وفدجي أيا فديسيين جماله جيل شودي أيا وحي فديسيين في حواشي المدينة بكاس مدينة زحمة نقطة زحمة مدينة سي وفدجي وسوقلاين زحمة وعريري ميل أو يعني متق باكن دن مالها ميل جيلك لو باكيمو مالها مدينة بنان كذا لو باكين تمركا جيلش ده ماشي على وذا فريسي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي على وذا فريسي وقلف على رحاله رجلا منه وحا معناها يعني جيلشي أو متقانا بنانك يسوف ديسيين هل نين أو صوتين هل نين رجلا منه نين إيه كمية أو صوتين نين كاس أو لو صوتين يدعى مجلس وحالها مسيلمة بن حبيب الحنفي مسيلمة بن حبيب الحنفي مسيلمة صفيعة وحفظية ما عن مسيلمة هاي ونقندونا نين أو مسيلمة لدهاية أي لو صوت في جيلشي أو منا بنانك لو صوت في ومضى إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه وفدقي وحي أتقي رسولك صلوات الله وسلامه عليه وأعلن إسلامه وإسلام قومه بين يديه وفدقي ويوضع إسلامين فأكرم الرسول صلوات الله وسلامه عليه وفادتهم وفد نمضوا ذي آذوا ومرتقاذي كان أرك ما شاء الله رسولك آذوا ومرتقاذي يعني مرتقاذ دي لونه خلاص انتهى الموضوع وفهم كرتا مرتقاذ وأمر لكل منهم بعطية وأمر لصاحبهم الذي كلفوه في رحالهم بمثل ما أمر لهم به رسولك صلوات الله وسلامه عليه وحوسيي هديده أيوسيي يعني وحوسيي يعني متقانا لعاك يعني وحياه بدن وح ليس سيوسي كله ما لعي من ما لدين وحياوهاس يعني وحاسي أهاير ما لدين لكن أديك وحبوسيي كوكستو أو وفدقاس وصوغ اللي كمده رسولك صلوات الله وسلامه عليه وحبوسيي kii oo marka loogu soo tagay halihii geelka oo banaanka lagu soo dhaafay geelashii banaanka lagu soo dhaafay oo fadhiyeen oo madiina duleedkeeda geelashaas eegana yani ninkii lagu soo dhaafay asagana wixiis gooniya loogu dhiibay waa loo dhiibay wixiis haloo geeya Allah waa loo geey waxay la soo kulmeen ninkii waa loogu sheekay lam yakad yablughu alwafdu manazilahu fi najaf markay gaareen magaaladii najaf oo iyaga ay degnaayeen ay ka imaadeen markay gaareen hatta irtadda musaylamata bin habib an al-islam musaylama waa ridoobay islaamnimadii waa ka baxay waqama fi an-nas dadka dhaxdooda istaagay yu'linu lahum asagoo u muujinaya annahu nabiyyun mursalun aniga nabi lay soo diraan ahay yaa dhahoyo musaylamihii oo geelash loogu soo tagay ayaa dhahay musaylamatul kadaab waa ninka marka aan aydin sheegayo oo musaylama la dhahoyo musaylamatul kadaab waa yani ninka macruuf waa la yaqaana وقام في الناس dadka dhaxdooda istaagay yu'linu lahum wuxuu leeyahay
أنه نبي مرسل إنه نبي لصادري هي أرسله الله إلى بني حنيفة غير بني حنيفة إلى صادري رسولك يا الله صادري صلوات الله وسلام عليه كافة الناس أجمعين لما أنتك أدونك جو إن الله صادر رسولك صلوات الله وسلام عليه أسجن وحوليه أنو على إيه بصادري غير بني حنيفة اللي صادري كما أرسل محمدا بن عبد الله إلى قريش نبي محمد أسبق يعني قريش لما الله صادرينه أنا غير بني حنيفة قبيل كان غير بني حنيفة لها على إيه صادري وتاجيها معنا wuxuu u maleeyaa dhaanka inuu rasuulka oo Quraysh loo soo diray bis Quraysh way dhaleen oo ka soo baxay leemaahine yani iyagoo ka dhaxdashay leemaahine yani Quraysh loo soo diray rasuulka sallallahu alayhi wasallam saaxibka wuxuu dhii doonaa lagaga sheekeen doonaa si fiican u dhigayso fatafiqa qawmuhu yaltafuna مدفوعين إلى ذلك بدوافع يعني شتى كان أهمها العصبية ماشي صفي على الجست فطفق قومه قوم كي سحاب بلاوين يلتقون حوله يلتفون له حوله أي أكهرار صنايان أي أكفدي صنايان أي أكتيس بوحنايان مدفوعين إلى ذلك بدوافع شتى وحاكو قصباي وحياو بدن أياكو قصباي أو كلا الدون كان أهمها وحياوها كو قصباي وحا أو مهم سناي العصبية قبيالة قبيالة وحنا هيستوى مانت qabyaalada ma aragtay waxyaabaha ku qasbay dadkan inay ag fadhiistaan ninka nabinimada sheeganay asagoo rasuulka sallallahu alayhi wasallam alayhi joogo oo ma taqaana aakhirul anbiya'i aakhirur rusuli oo ahay rasuushii iyo anbiyadii ninkii ugu dambeeyay oo la soo diray oo yahay ninkan inuu istaago oo nabinimo sheegto dadkii ku taageeray maxay ku taageereen dadkaas waxyaabaha ku taageeray dadkan waxyaabaha ay ku taageereen waxa ugu muhiimsanaa lagu dhahay al-asabiyya qabyaalad حتى إن رجلا من رجالاتهم قال نن إيه كمدا وحده أشهد أن محمدا يعني لصادق نبي محمد إنه رملويه إنه نبيه والله وأوجه وأن مسيلمة الكذاب بين لو إنه waxaan hubaa oo in Nabi Maxamed ruulow yahayo oo si sax ah loo soo saaray musaylamana nin beenlow yahayo nabinimadiisa ay been tahay waa ogaa oo dhahay walakin kadhaba rabi'a beenlowgi rabi'a ahay ayaa ahabba ilaya ani leeg jacalaha oo dhahay min saadiqin mudar mudar yani qabiilka la dhahayo oo Quraysh ka dhashay wiilkoodii oo Maxamed yani waxaan ka jacalaha oo dhahay yani beenlowgi rabi'a oo musaylamatul kadhab ka jacalaha oo dhahay alaashan qabyaalad darteed asagoo og inuu rasuulka runtiis tahay oo rasuulka rasuulnimo tahay laakiin qabyaalada ku raacay wallahi arintan bidabti oo xaqiiqi ah annagayna haysataa annagoo u jeedno yani ma taqaana systemka annaga aan raadinayno inuu system sax yahay system sax ah oo ma taqaana oo si saafi ah oo ma taqaana aan u helnay oo si saafi ah anaga la gacanteena ku dooranay oo si saafi ah anaga la ogolaanay oo macnaha aan qalbi furan iyo niyad furan aan ku soo dhaweynay annagoo nala qasbin annagoo nala jajoobin system oo ma taqaana anaga gacanteena aan ku sameysanay al qabyaaladeyna markii la qabyaaladeeyo dadka qabyaaladeynayo oo qabyaaladaas macnaha oo dawladda rabaan inay ku burburiyaan inay rabaan way ogyihiin systemkan inuu system sax yahay oo nidaam ku socdo oo macnaha wax hagaajin raba way ogyihiin maxaa loo dabargoynaa maxaa macnaha talaafada loogu dhigaa maxaa saan dhan loo sameynaa waxaa loo sameynayo oo dhan waxa waaye qabyaaladnimo jirto tan anaga na haysato waay hadda xaqiiqatan xaqiya u jeednaa ma rabno xataa ina rajulan min rijaalatihim nin oo nimankoodii oo macnaha oo kamid raggan oo kamid ahaa meesha wada fadhiyo oo ninkan taageerooyin waxay qirsan yihiin anna muhammadan as-sadiq inuu Nabi Maxamed run yahay wa anna musaylamata kadhab inuu yahay walakin kadhab rabi'a uu leeyahay ayaa ahabba ilaya min sadiqin mudar Nabi Maxamed musaylamata ka taageersana alashan qabiilnimo walamma qawiya sa'id musaylamata wa qallada amrahu walamma qawiya ساعد مسيلمة وقلد أمره كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا جاء فيه مسيلمة الكذاب يعني وحوه هلي مسيلمة الكذاب وحوه هلي قربه هلي قبيل كيسي دادك أساق أو كرش أورير بني حنيفة يكوى كالي أو بضان أو اسكو جفئه أو وحوه كهلي متقانا قرب أو كهلي
waa xoogeystay marka waa xoogeystay ciidan oo waxay noqdeen oo xoog leh saaxiibkaa waa kadsoomay warqado wuxuu usoo qoray marka rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu caleyh rasuulka warqad usoo qoraa warqadii maxaa ku qoran marka min musaylamata rasuulullaahi ilaa muxamadin rasuulullah asma diidano xataa nabi maxamed inuu rasuulka ilaahay yahay asma diidano laakiin ana wuxuu leeyahay anigan rasuula ah haddii kale sheekada banad waa wuxuu dhahay min musaylamata rasuulullah musaylama ay ka socotaa rasuulkii ilaahay ah ilaa muxamadin rasuulullah maxamed oo rasuulullaahi ah ee u socotaa salaamu calayk salaan kadib ama bacda fa inii qad ashraktu fi lamri macak aniga waa kula wadaagi aniga mataqaanaa rasuulnimadan kula wadaagniyo ogow wa ina lana nisfu lardi waliqurayshun nisf annaga oo reer bani xunayfa reer bani xunayfaha anaga qabiilkeeni reer bani xunayfa dhulkaan a ujeedid annaga nusaan ka leenahay ya waliqurayshin nisfu lard qurayshna waxay leeyihiin nus dhulka aan kala qeybsanay dheheenba yani bes waa dhulka waa kala qeybsanaynaa annaga reer bani xunayfa yani anaa nebi u nusaa qaadanaynaa waa quraysh iyo adigana mataqaana adiga qabiilkaagana nuska dhulka wixii soo haray kaleeto nuskiisa qaata waa kala qeybsanaynaa u taagan yahay ninkan warqada rasuulka saas ugu soo qoray wabacatha alkitaaba warqadii wuxuu usoo dhiibi maca rajulayni laba nin oo min rijaalihi nimankiis ka mid ah laba niman oo rag ah wuxuu usoo dhiibi oo raggiisa ka mid ah falamaa quri'a alkitaabu linabiyi calayhi salaatu wasalaam warqadii markii rasuulka loo akhriyey qaala lirajulayni labadii nin ayuu wuxuu ku dhahay labadii oo meesha taagneyd oo warqadii keena wuxuu ku dhahay wamaa taquulaani antumaa maxaa idinkana leedihiin idinkana ra'yigiinka waramaba ninkaan macnaha ninkaan asaga runtiis miyaa mise beentiis waay macnaha idinka maxaa ka leedihiin ninkaan wuxuu warqada kusoo qoray faajaabaa waxay dhaheen naquulu kamaa qaala sidii as dhahi leewaano arrinta ninkaas nebi waay aniga nebiyaa tahay sidii warqada ku qorneed le anag maxaa noo dhibe saasay dheheen faqaala lahumaa wuxuu ku dhahay rasuulka amaa wallaahi lowlaa ana arusula laa tuqtalu la darabtu cunuqaykuma haddii wuxuu dhahay rususha lasoo diro safiirada lasoo diro haddaan la dili lahayn qoorta idinka wada jari lahay haddii oo rususha lasoo diro warqadaha wado haddaan la dili lahayn qoorta idinka wada jari lahay dhahay uma kataba ilaa musaylama warqad u qoray risaalatan jaaa fiiha warqada uu ku dhex dhahay rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu caleyh bismi illaahi araxmaani araxiimi min muxamadin rasuuli illaahi ilaa musaylamati alkadaab min muxamadin rasuulillah ilaa musaylamati alkadaab assalaamu calayka assalaamun dheh calaa man ittabaca alhudaa ama bacda faina alarda lilah cibaadihi waalcaaqibatu lilmuttaqiina warqada saasuu ku qoran rasuulka bismi illaahi araxmaani araxiimi min muxamadin waxay ka timid muxamed rasuulullah ilaa musaylamati alkadaab ee beenlowga ah ee u socotaa assalaamu calaa man ittabaca alhudaa ha nabad helay ninkii hanuunka raacayaa nabad helay amaa bacda yani markii warkaas laga soo noqdo fa ina alarda lilaahi yarituhaa man yashaa dhulkan ilaaha iska leh dhulaan kala qeybsanaynaa iyo waxaa sheegaysid wax jira ma ahan dhulkan ilaaha iska leh yarituhaa man yashaau ninkoo doono oo macnaha oo asaga doono oo min cibaadiha addoommadiisa ka mid ah ayuu dhaxal siinayaa yarituhaa man yashaau qofkoo doono ayuu dhaxal ahaan u siinayaa ilaahayna oo min cibaadihi addoommadiisa ka mid ah waalcaaqibatu ciribta dambena lilmuttaqiina muttaqiinta u sugnaatay ciribta dambe ee wanaagsanna muttaqiinta oo ilaahay ka cabsaday ayay u sugnaatay saaxiibkaa saasaa loo qoray wabacatha risaalata maca rajulayni labadii ninle loo dhiibi warqada waxaa la dhahay u celiya warqadan ha loo geeyey warqadii ha loo geeyey ازداد شر مسيلمة الكذاب وحاز زيادة شرط مسيلمة الكذاب واشترى فساده واستشرى فساده فساد ديسا أفافضي فساد كي أو فسادنا أمضى أيا فافضي فرأى الرسول صلوات الله وسلامه عليه أن يبعث إليه برسالة يزجره فيها من غيه وندب لحمل الرسالة بطل قصتنا حبيب بن زيد rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayhi iyo muslimiinta waxaa soo gaareen ninkii inuu qooqay oo kibray oo mataqaanaa fasaadkiisa ummadda dhan oo gaarsiiyey ay sii socota fasaadkiisa wuu sii socdaa ummaddii wuu sii fasaadinoyaale ummaddii nafta u keenay rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayhi wuxuu go-aansaday marka inuu haddana warqad kaleeta diro warqadaas oo ku canaananayo waa lagu canaananaya
waxaan haddaa ka heri weysid iska jar waxa kugu dhaco camala laleeyahay. warqaddii marka oo canaanta ahayd ayaa waxaa loo wakiishay lixamli risaalati, warqaddii inuu qaado waxaa loo wakiishay batalu qisatina xabiib binu zayd, atooraha qisadeena ee xabiib binu zayd ayaa marka loo wakiilanaya warqaddii asaa loo dhiibaya, xabiib binu zayd oo warqadda loo dhiibaya. sheekadii waa tanaa marka ya qalbigaaga qalbigaaga mara ku xiro, markaas murugaa soo socota macnaha. wa kaana yowmaidin xabiib binu zayd saxaabigeeni jaliilka ah wuxuu ahaay shaaban nadra shabaabi, dhalinyaro oo dhalinyaronimadiisa buuxsante, dhalinyaradanimadii waa buuxsante ya muktamila alfataa'i mu'minan min qimati ra'sihi ilaa akhmasi qadamayhi. ninkan waa wiil dhalinyaro ah oo xoog leh oo joog leh oo qurux badan oo mu'min ah oo mu'minnimada ama iimaankiisa buuxiyey madaxiisa ilaa mijmihiisa, madaxa ilaa mijmaha iimaana ka buuxo iimaan. ninkaana ujeedi madaa xabiibbi ilaa zayda, wuxuu aaday xabiib zayd xaggiisoo aaday ilaa maa amara rasuulullaahi xabiib binu zayd ayaa baxay waaye ilaa maa amarahu rasuulullahi sal allahu alayhi wasallam, rasuulku wuxuu amroo la baxay hayra waanin asoo oon daahaynin walaa mutarayithin asoo waxba sugaynin ayuu baxay. tarfacuhu najaadu oo macnaha koryeelayso meelaha oo macnaha dalaca ee meelaha oo macnaha muxuu ahay meelaha buuraha tarfacahu najaatu meelaha sare ee buuraha oo mataqaanaa kor u qaadayso waay. wataxutuhu lwihaadu meelaha oo macnaha doonka oo macnaha maxay ahayd biidegeenadana hooseenay, meelaha biidegeenadana oo mataqaanaa oo hooseeya. maxaa laga wadaa meel dalac dalcad meel dalcad iyo meel hooseysaba isagoo mataqaanaa kor iyo hoos u kala qaadayso. macnaha faraskiisu saaran yahay, faraskiisa wuxuu u wadaa maxaa kaa galay, markaasaa markii kaamirada kor ay ka hayso waxaa arkaysaa isagoo meel dalcad ee saa u koraay, haddana waxaa arkaya isagoo meel god ee saa u galaay, faraskii oo wataa waa ordaya macnaha markii kaamirada kor ka hayso waa kor laga arkaayo macnaha ya. sheekada marka yani qofkan kaaga sheekeynayo sheekada oo qoraalka soo qoray wuxuu kaaga dhigoyaa inuu asaga kor ka arkoyo camal ninkan ya oo helicopter duubooso ya. tarfacuhu najaadu meelaha oo mataqaanaa dalcadda oo kor u qaadayso buuraha kor u qaadayso oo korkoraya sii faraskiisa ya. wataxutuhu lwihaadu meelihii degaan dega ahaay oo godka ahaay asoo saa usii degaya arkaysaa u dhahay xataa balaga diyaara bani xunayfa ilaa uu ka gaaro yani buurihii reer bani xunayfa, qabiilkii reer bani xunayfa la dhahay ayuu gaaray. fi acaali najaf waxay ku taallay marka magaalada najaf meel saray ku taalla, magaalada najaf meel buuro ahay ku taalla marka ya. wadafaca risaalata ilaa musaylamatu lkadaab warqaduu dhiibi, musaylamo gacanta ka saara warqadii. famaa gaada musaylamata yaqifu calaa maa jaa fiiha, isla markii uu ogaaday warqadda wixii ku dhex qoran xataa intafaqa sadruh buuxsame abaab xanaaqoo la buuxsame xataa intafaqa sadruhu daqiinatan waxiqdaa, cuqdad iyo xaasidnimo iyo waxaa ka buuxsamay xanaaq. wabada sharu waqadara calaa qasamaati wajhihi addamiimu alasfar ya. wejigiis waa isbedelay, wejigiisi dhan wuxuu noqday ya yani jaallo noqday, jaallo wejigiis dhan nooc kaloo noqday, waa isbedelay as dhan, indhiyaa gaduuteen, waa buuxsamay xanaaq, kibir iyo isla weyni ku jirta mogtahay. wa amara bixabiibi binu zayda an yuqayad, xabiib binu zaydkan hala ii xerxero dhah, hala ii xerxero ninkan ya, ninkan hala ii xerxero dhahay saaxiibayaalo ii xareeya. wa an yu'tiya bihi duxya alyawm ataali, beri hala ii keeno dhah, beri barjankii saaca 10 camal 11 ama 10 meelahaas camal hala ii keeno dhah. ninkan anaa ka shaqaysanayo. xabiib binu zayd muxuu galabsaday ninkan? asaga warqaduu diray, warqadii dadkii oo u diray si nabadaa lagu soo diree, asaga si nabad imisaga dayayo maskiinkan ya. xabiib binu zayd waa la haystaa, waa xeraya. falamaa kaana algadu beridii markii la gaaday, maalintii subaxi waagi markuu beriyey ya, tasadara musaylamata majlisahu, musaylama waxaa loo diyaariyey yani meeshii makaan fadhigiisii oo asaga macnaha oo dadka ka xukumayay ayuu soo fadhiistay, dadkii dhanaa imaadeen. wajacala calaa yamiinihi wacalaa shimaalihi atawaaqiit min kibaari atbaacih, dadkii asaga ugu weynaayeen la taliyayaashiisii, dadkii asaga mataqaanaa rufiyaanadiisii ahaayeen
dadkii mataqaanaa oo asaga oo kaalmeynayeen qabiil ahaan u kaalmeynayeen yani baarlamaankii dhanaa soo fadhiistay meesha, wasiiradiiyaa soo wada fadhiisteen meeshay soo wada fadhiisteen kulligood. wa adina lilcaamati biduquuli calayhi dadkii oo caamada ahaa dadkii dhan saalikaaliyaal dadkiina waa la isugu yeeray qabiilkii dadkii dhan isku imaada alleh meeshay soo imaadeen. ثuma amara bixabiib binu zaydin fajii'a bih, xabiib binu zayd alla keena alleh, xabiib binu zayd alla keena. wa huwa wuu xerxereen silsilad asi dhan waa xerxereen, muxuu gaabsaday ninkaan. waqafa xabiib binu zayda istaagay wasta haadihi ljumuuc dadkaa meesha isugu imaada dhexdooda istaagay, alxaashidadii yani oo tirada badan oo dadkii tirada badnaa oo meesha isugu imaaday ayuu markina soo istaagay, waa meeshuu soo istaagay. alxaaqidati oo xaasidiinta ahayeen mashduud alxaashidati alxaaqida mashduud alqaaba isagoo macnaha taagan oo yani si oo wuxuu u taagan yahay oo mustatiil oo u taagan yahay macnaha marfuucu lhama oo madaxana kor u qaadayo, shaaqiq alanfi sankana kor u taagayo, macnaha isla weynidii islaamnimada waay isla weynidii iimaanka ayaa macnaha aasaas yeelaysa inuu asaga macnaha saas xaaladaas oo ku sugnaado. ma aha isla weyni kale ma aha, dadkaan oo ka xanaaqsanyahayo xanaaqii isla weyni kor u taagayo inuu ii dadkan ka sarreeyo dareensiinaya. wantasaba baynaha karumxin samhariyin yani waran oo dhulka la taagay la suri camal oo u taagay. axkama almuthaqifuuna taqwiimahu dadkii mataqaanaa oo wax xerxereen oo xerxerayeen si fiicane u xerxereen. yani haddaa aragtid qoorta xerga yani silsilada qoorta ma dhahdo madaxa meel kasta gacmaha lugaha meel kasta laysku xerxerayo si u dhaqaaqeen. faltafata ilayhi musaylama aasaan u fiiriyey, musaylama wuxuu fiirinaa xabiib. waqaala wuxuu yihi musaylama atashhadu ana muxamadan rasuulullah, ma qirsan tahay nabi maxamed inuu hay ya xabiib. faqaala xabiib wuxuu yihi nacam haa ashhadu ana muxamadan rasuulullah, waa qirsanahay inuu nabi maxamed rasuulka ilaahay ayuu yihi. fatamayaza musaylamata kaydan xanaaqow la daldilaace, xanaaqow la fuuray. waqaala wuxuu dhahay watashhadu anii rasuulullah, ma qirsan tahay inaa anigan rasuulka ilaahay ahay, anigan rasuulka ilaahay inaa ahay ma qirsan tahay. faqaala xabiib wuxuu yihi fii suqriyatin laadica jasjas oo macnaha oo ku jasjasay isaga wuxuu ku dhahay ina fii udunaya samaman min can simaaci ma taqulu, ina fii udunaya samaman fii simaaci ma taqulu. dhagahan ka xerana waxa aad sheegaysid dhan ma maqloy, waxaa sheegaysid ma maqloy dhah ya. famtaqica wajhu musaylama wejigiisaa isbedelay ya. musaylama wejigiisaa isbedelay. wartajafa shafataahu ya xanaqan yani faruurihiisina way jarayeen, bishimihii aa jareeyey xanaaq dartiis. wa qaala lijallaadi dadkii asaga garaacayeen oo jallaadkiisa oo meesha taagnaayo oo inay cadaabaan diyaar u ahaayeen wuxuu ku dhahay iqtac qidcatan min jasadih, gabal hilib ha laga gooyo, ninkan gabal hilib ha laga gooyo, jirkiisii gabal hilib ha laga gooyo ya. gabal hilib ha laga gooyo jirkiisa. فأهوى الجلاد على حبيب بسيفه وبثر قطعة من جسده فتدحرجت على الأرض. جلادك يا حبيب وحوق نفتي سيفتيسا قبل هلبا كقوي حبيب بن زيد قبل هلبا أيا كقوي أو جركيس لقى قوي قبل كي هلبا أيا نلقي أو قدلان دلودي يعني نلقي وسان أو قدلان دلودي لقى قوي ayaa dhulkii ku dhacay oo saa u dilaandilooday. subxaan allah. uma acaada su-aashii ayuu ugu weydiiyey haddana musaylama atashhadu ana muxamadan rasuulullah, maxamed inuu nabo maxamed macnaha rasuulka ilaahay yahay ma qirsan tahay. qaala wuxuu yihi nacam haa ashhadu ana muxamadan rasuulullah, qirsana inuu nabo maxamed ilaahay. wuxuu yihi musaylama watashhadu anii rasuulullah, ma qirsan tahay ina ani rasuulkii ilaahay yahay. qultu la
أنا قلت لك وأقولها إن في أذني صمما عن سماع ما تقول ور أنا وحى شيء وسيد مخلوق يقولها سكان قتادي وحى شيء وسيد أنا ما هو مخلوق يبقى فأمر بأن تقطع من جسده هذا حير هلا جوي قطعة أخرى قبل كلا هلا جوي جركيسي هلا جوينويا فقطعت ولا جوي حبيبة جركيسي نعك لا جوي وتدحرجت على الأرض دولكي كوجلا جلت يعني قبل كلا جوي دولكو كودا عوا دولكي كودلن دلودي حتى استوت إلى جانب أختها إلا نعك الإنعي هدا لا جوي أو كلا لمد نقطي لبض إن على كلا جرى والناس شاقسون بأبصارهم إليه dadkii indhahay ku tolayaan dadkii indhahay wada fiirinayaan iyagoo oo daawanay ayaa jirkiisa hortooda lagu googoonayaa madhuuluna an tasmiimihi wa cinaadihi waxay la yaaban yihiin sidoo u madax adeegayo sidoo ugu adkeysanayo yani mataqaana ay la yaaban yihiin adkeysigiisii iyo mataqaana madax adeegiisii ay la yaaban yihiin xabiib asaga muxuu adkeysan waayay muxuu u madax adeegi waayay yani mataqaana baadil hortiisa lagu sheegayo wax baadil ah ومضى مسيلمة آسيوتي يسأل ويدينايا والجلاد دتكي وح قراعيين يقطعوا قوينايان أو هلبك كسي جرايان حبيبنا يقول لها أشهد أن محمد رسول الله وحان قرايا إنه منه محمد رسولك إلهي حتى صار نحو من نصفه بدعا مقطعة مثورة على الأرض ونصفه الآخر كتلة تتكلم إلا أو كنقض نص أو نسكيسي أو باباي أو جرجري أو إبر oo nus dana eber laga dhigi nuska kalena macnaha wuxuu noqday macnaha qolfoof oo noqday dhinac dhan la falay way wanisfu al-akharana wuxuu noqday kutlatan tatakallamu gabal yar oo hilib oo hadlay gabal hilib oo hadlay oo nuska kala noqday subhanallah yani gabal oo hilib ah oo hadlay dhinac ka noqday dhinacna waa la baabi'iyay bas loo jaray ayaa la baabi'iyay ثم فاضت روحها كتكتي ودنت حبيب بن زيد حبيب كيني يعني حبيبك عاو انا كشيكينيني صحابيغيني دقسي اهبا واوا دنتيba خلاص maxaa yaalahay waa dhiig baxay bis waay maxaa u yaalo dhinac dhan hilib malaha lagu dhahay bis waay maxaa kala sugay ya حبيب ودنت وعلى شفتيه الطاهرتين اسم النبي الذي بايعه ليلة العقبة asagoo bishimihiisi ku sii dambeeyay ayuu dhintay magacii nabiga sallallahu alayhi wasallam oo kula baayactamay habeenkii oo aqaba bay'at al-aqaba habeenkii bay'at al-aqaba yani mataqaana oo kula baayactamay ayuu mataqaana rasuulki sallallahu alayhi wasallam alayhi ayaa bishimihiisi ku sii dambeeyay rasuulku sallallahu alayhi wasallam alayhi wuxuu leeyahay ya أشهد أنه رسول الله أيوليه اسم محمد رسول الله أصدها يا روحي كبحدي ناعي حبيب بن زيد إلى أمه كي تعسيدي وذي أيها وحقوقي هويديس وحالو شاقي هويديس نصيبة المازنية وحالو شاقي ويلكيدي إنه شهيدي ومسيلمة الكذاب جرجري أي الله شيكي فما زادت على أن قالت أرنت أسمه زائدين بإسلامك وحيتري من أجل مثل هذه الموقف أعددته أنسان عمل لب أديارين نكان أنا مسكت لنا نكان مركان دلاي إنه سانكو دنت لين بأصوت دلاي ده نكان مركان دلاي إنه حالة دانكو دنت لين ودلاي بو عملين هذه إن الفوراء إسك جراعز يا لهوي إن ده اسمه عملين يا طلايا إن ده اسمه عملين may markay maqasho isla markii waxay tiri maxaa u dhalay ba aslan inuu shahiid noqdo leen buu dhalay dhahday ya aday ku taala ada jaxanjaxaya bab inuu shahiid noqdo leen buu dhalay wa inda allah ihtasabu ha ilaahi agtiisa u ajar doonto jannadii oo aaday maxaa walwalkaas laakiin hooyo waay dhageysta waxay dhihi doonto laqad baayaca rasuulu ay tiri salawaatullaahi wasalaamu calayhi laylata alcaqabata sagiiran rasuulka oo la baayactamay rasuulka ayuu bay'a la galay rasuulka ayuu la heshiiyay habeenkii bay'at al-aqaba sagiiran asayr gacantiisa yar oo rasuulka giliyay oo ka ballan qaaday inuu rasuulka dartiisa u dhiman doono hadana waa kana rasuulka dartiisa u dhintay wufiya lahu al-yawmu kabiran maanta asagoo weyn ayuu oofiyay asagoo yar oo bay'adi galay oo rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayhi oo ka ballan qaaday inuu ruuxigiisa u jaraayo asagoo weynna maanta waa kana waa oofiyay ballantii ya ولئن أمكننا عن مسيلمة هدي مسيلمة إلهي قعنت إيجليو وهو
ولئن أمكنني الله هدو إلهي قعنت إيجليو من مسيلمة لأجعلنا بناته يلطمن الحدود عليه قبل ناقيسي يا قبليسي يا إن رفورها قراعنا إذا تسي دونها إيغو أو متقانا أوينايان أو دهاي معناها إن تولاي إيغو دهاي إذا تسي دونها هذه مسيلمة قعنت إلهي إيجليو وحا إذا تسي دونها يا gabdhihiisoo barooranaya idin tusi doona oo barooranaya saa un gali doono ma dhaafayay taagantaha lam yubti alyawma alladhi tamanniyathu nusaybata kathiran lam yubti alyawma alladhi tamannathu nusayba kathiran nusayba ya nusaybadeeni oo xabiib hooyadiisi sugitaankeed maba dheeraanin wax badan ma soo wareeganin حيث أذن مؤذن أبي بكر في المدينة أو بكر بركاسي يعني أذن وحو كبحي أمر كبحي أن حي على قتال المتبني الكذاب متنبئ الكذاب مسيلمة رسولك صلوات الله والسلام عليه وحو أمر عنده أبو بكر الصديق رضي الله عنه وحو أمر كبحي إن لدق على موه نينك نبي لماذا شاكت بين له مسيلمة الكذاب إن لدق على موه أيوه بحي أمر كاسو بحي فمضى المسلمون مسلمين دقاقين يبحثون يحطون القطع يغو طلبت أقاضى إلى لقائه لكلنكي مسيلمة الكذاب مسيلمة الكذاب على آذوير وقاضي وكان في الجيش عيدا كي يكون حجر متقانا نصيبة المازنية وولدها عبد الله بن زيد نصيبة عبد الله بن زيد يا واي ويل كيد واي وحبيب حبيب walaalkiisa iyo nusayba oo hooyadiis ayaa baxeen dagaalkii ka qayb galeen iyagoo rabaan inay oo wiilkoodii asaga wuxuu rabaa walaalkiis inuu aaro yani iyadan waxay rabtaa wiilkeedii inay u aarto dagaalkii ka qayb galeen wa fi yawm al-yamama maalintii yamama nusaybata tashaqqu as-sufuf shuhidat وفي يوم اليمامة الأغر شوهدت مالنتي ugu dambeysay ee yamama dagaalkii 20 kun oo ciidan oo ku dhimanayeen mataqaana musaylimatul kadaab ciidankiisa ay ka dhimanayeen oo xadiiqatul mawt xadiiqadii la dhahay waxaa lagu dhax arkay nusayba la arkay nusayba iyadoo seefadata tashaqqu sufufa iyadoo safafkii jeexayso safafkii gaalada oo isaan muslimiinta isku dhex jireen iyadoo dhex jeexaysa la arkay oo raadinayso macnaha musaylama kan lubuati sidii oo gool aan dhahay gool waxaa la dhahaa libaaxa oo maamada waxaa la dhahaa gool الثائرة دولامس يعني جول أو متقنا علمه هذا لقى تابتي أو متقنا هي دولان أو كله يلا راح سعته صففكي قال هذا متقنا مسيلمة الكذاب يعيد كيس وهي إذا تنادي لهسو أين عدو الله أو عدو إله دلوني على عدو الله اتصي إله عدو مسيلمة الكذاب إيش هلا إيه صارت فلما انتهت إليه وجدته إذا صاص لهس كقيلنسو إسلامركي وحيه شيء مجددلا على الأرض أصولك من بعد يال أصولك يالي أركتسس يال وسيوف مسلمين تساففتوذنا تنهل من دمائه أو نحدوالنا سمتقانا ليجيسا جاء والله هرمريا مسلمين تيا متقانا من ديدودي سافتوذي يوحي ايوتين دنكو دفتين فضابط نفسها نفتيد واقوبستي اسكو مدلا waa muslimiinta haday dilaan iyo haday ii dishabo waxay u soo baxday inay indheeda ku aragtay in dilkiisi فضابط نفسا يعني متقان نفتيدي ayaa diib noqotay way waqarat ayna wa il qawbsatay wiilkeedii khalaas oo artay way walima la maxay ugu aarweysay ولما لا محي اوغو ارويسي الم ينتقم الله عز وجل لفتاها البر التقي الهي ما اوغو ارينو هي ويلكيدي باريغا الله كعبسيغا بدنا من قاتله كي دلي الباغي الشقي متقانا او دردرسدي باقي كافركا او دردرسدي مسيلمة الكذاب بلا نعم واوغو اريوي لقد مضى كل من هذه رب الهي اكتيسو هذه كيس أكتيسو آدي لقد مضى كل منهما لبضوضة حبيب
oo anaga caawa aan ka sheekeynayni in musaylimatul kadaab labadoodaba ilaahay agtiisa ay wada aadeen laakiin aaditaankaasi isku mid may ka ahaayeen ilaahay agtiisa maya fariiqun fil janna wa fariiqun fis saciir ay kala noqdeen fariiqun koox fil janna jannaday galeen wa fariiqun kooxna fis saciir oo musaylimatul kadaab naarti saciira ay galeen xabiib bin zayd qisadiisa caawa aan ka sheekeynayni xabiib bin zayd ee murugada badneed waa ninkan waa ninka anaga aan caawa ka sheekeynayni waa sheeko oo murugo badan waaye yacni nin oo mataqaanaa ilaahay oo rumeeyey oo mataqaanaa ilaahay yani mataqaanaa ka run sheegay oo diintan ka run sheegay oo ilaahay macnaha yani ballantii oo rasuulkiisa oo ka qaaday oo ka run sheegay isagoo gacantiisa yar oo ballan ka qaaday isagoo weyna oofiyey ayuu ahaa xabiib bin zayd yani mataqaanaa baycatul caqaba ayuu ka qayb galay baycatul caqaba bayca aan ahayn ahayd waxaa la qadarin jiray dadkii baycatul caqaba waa 70 ay ahaayeen muslimiinta oo la dhibaayo oo la rafaadinayo oo mataqaana muslimiinta oo mataqaana maka lagu dhibaayo oo yani dhibaato iyo shido iyo mataqaana cadaab dhib dhan oo macnaha lagu haayo ayay iyaga madiina intay ka soo baxeen waxay imaadeen caqaba intay imaadeen rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayhi soo dhuuntay oo meeshii caqaba يعني isugu imaadeen iyaga oo 70 iyagoo يعني meesha markay imaadeen maxay u imaadeen waxay u imaadeen waa muslimiin ay ahaayeen in rasuulka la balantamaan oo rasuulka ay dhahaan ya rasuulullaahi anaga waxaan diyaar u nahay inaan naf iyo maal kugu waxaan diyaar u nahay inaan ku difaacno ya rasuulullaahi noo imaw anaga ku difaacayno ka soo tag gaaladan dhaxdooda oo dhahay anaga ku difaacayno anaga ku garab يا أنصارتي أهاين أنصارتي يقول تدواتن إيجو أيه وحقوا إمادين إن الرسول صلوات الله والسلام عليه يد ولسان أو إيه دهان أنجا كادم بينه أوجو هذه أصحاب هذا أنجا كادم بينه أوجو يا صحابي جين جليل أو عاو أكشي كيني أو متقانا قصدي سمروجة لهت وكمد أهاي تدواتن كاس وكمد أهاي أو بلنتك قاد رسولك صلوات الله والسلام عليه أو بلنت هذا ما أنت أوفيه وكانها إلهي متقانا يعني أنا شهيدني من إلهي أخرى المهم يعني صحابيgaas waxa way wax badan aan ka baranay ka ogaanay oo baariga wuxuu ka dhashay yani reer wada iimaan ayuu ka dhashay guri oo wada nuuraayo oo iimaankii la nuuraayo ayuu ka dhashay macnaha habeen dan baadu ilaahay dhaho waxaan qaadan doonaa yani saxaabigeena oo jaliilka Abu Talha al-Ansari ayaa qaadan doono ayaan qaadan doonaa haduu ilaahay dhaho Abu Talha al-Ansari ninkan yaa waaye ninkan islaamnimadiisii wuxuu ahay meher qof dhan meherkeeda ahay inuu asaga islaamo ayaa qof dhan meherkeeda oo ahay yani sheeka cajiib ya hadda adii gabar yahay adi soo fiirinayo meherkaaga maxaa waaye markii lagu dhaho waxaa dhihi lahayd aniga waxaan rabaa 100 halaade aniga waxaan rabaa 100 gram oo dahab aniga waxaan rabaa waxaas oo intaas kiilo dahab aniga waxaan rabaa intaan rabaa dhihi lahayd Soomaa ninkan waxaaba macnaha gabadha asaga oo guursan lahaa ya oo Muslim la dhahayay waxayba dhahdayba aniga hadda ay guursanaysid waa ina islaamtaa gaalo ahay waa ina islaamtaa meherkeygana يا إنا إسلامتي دوايب مهرك دنبا إنا إسلامتي دوايب إن شاء الله قصدان إيدو آد ومعان بدن سيدي كل عادي إيا سيدي كحاس الشيء إيوه ماشي وكدن بي أبو طلحة هدو إلهي دوها بين دنباس في عن أغطى تاكسن دونا آد يا أبهزنتين وحي أنا عن آخرني عاوة هدي وحغلداد يكو جران أنا حقيقي واي إيو معناها دميني من هدي واحد صح أهاينا أو واحد صح أهاينا من عند الله وحي إلهي نوافجي أي أهاينا تنكلي waxaad tihiin dad aad u jecel khayrka tihiin markaas idin xasuusiyo muhiim waaye dad khayrka jecel tihiin qofka markuu khayrka jecel yahay ina u qirtid waa inuu khayrka jecel yahay haween kasta waxaad tihiin diyaar u tihiin ina ka faa'iideysataan يعني ما تقانا خيرك إنك فائدتان ميل كست أويالو أما هنقض الصحابي لقى شكينا أما هنقض تاريخ الإسلامي هنقض أما هنقض ما تقانا أحاديث سنن كي أو يعني ما تقانا رسولك أو كتاب صلوات الله والسلام عليها هذا أما تفسير هذا القرآن هذا تتأو خيرك رادنا آياتهن تتأو خيرك آد وجعل آياتهن إن لي قرطاس مهم وايه marka mataqaana ilaahay ajar iyo xasanaad dhamaantiina Allah idinka wada siiyo anigana idin kula jiro aad ay u mahadsantihiin inta oo sabuurada oo mataqaana dareenkoodii ka soo muujiyay oo mataqaana dareenkoodii soo duceeyay
يعني dhammaantiin يعني sidoo kale idinku duceynaya ilaahay mataqaana khayr iyo wanaag ha idin siiyo mataqaana ilaahay wax khayr qaba Allah idinku bedelo sida u share garayseen oo ku maasantihiin walaalihiin aa ula wadaagteen maxaa kaloo idin sheegaa oo idinka iloobaya ma og wallahi ma og dhib ma lahan waa inoo haween danba hadduu ilaahay dhaho iyo Abu Talha al-Ansari ayaa dhageysan doonaa. Abu Talha al-Ansari yuu ahaay insha Allah Xabiib kulli waa maqalnay Xabiib bin Zayd yani qofka oo ahaay waa ogaanay Xabiib bin Zayd iyo sida oo ku dhintay ninkaas yani mataqaanaa bidaayadiisi nin saas oo ahaa wuxuuna ku dhintay gacantii Musaylamatul Kadaab ayuu ku dhintay isagoo rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayhi ka wado risaalad oo u socoto Musaylamatul Kadaab oo u socoto risaaladaasi markuu arkay Musaylama xanaaq oo ka xanaaqi darteeda ayuu mataqaanaa wuxuu bilaabay inuu jarjaro wuuna jarjaray yani waxay ahayd yani mashhad ama mowqif oo qof bani aadan ah aan u adkeysan karin oo qofkii dhageysta damiirkiisa mataqaanaa oo xanuunayo damiirkiisa xanuunayo macnaha qofkii markuu maqlo yani hebel haddii oo si dabiici u dhintay oo yani seefaa lagu dhufti oo dhintay yani wax macquul waay laakiin nin oo naftiisa asoo ku jiro oo u jeeda indhihiis shanta oo hilibkiisa la jarjarayo yani xaalad oo khatar ah qofka damiirkiisa aan u xamili karin waay ma fahamtay marka nin oo saas ku dhintay waay Xabiib yani waa nin loo xanuunsado oo damiirkii malaayiintii usoo xanuunsatay oo kale wallaahi yaa ku dhaartay qalbigeen oo xanuunsaday marka anaga sheekadiis aan maqalnay oo aan dhageysanay waana raali ahaanaysiin waa ku qasbannahay inaa anaga aan xanuunsano inaa anaga dareegno islaamkan iyo diintan meesha loo soo maray iyo loogu soo halgamay inaan maqalno oo dhagaheyna aan maqalsiino oo aan ku raaxeyno oo anaga mataqaanaa aan ku dhiirigelino oo iimaankeena aan ku xoojino يعني wax muhiim ah waa qasban anaga qasabna u aada u maasantihiin yani warka idinku badinin waxaan idin leeyahay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh